hay-adda wadaniga ee GTS oo xafiiskeedu ku yaala magaalada Hargeysa isla markaana ka shaqeysa horumarinta adeegyada bulshada ayaa maanta ku wareejisay wasaaradda caafimaadka ee Somaliland qalab cusub oo wax looga qabanayo ka hortagga xanuunka COVID-19. qalabka oo ah mid lagula soconayo isla markaana lagu tiragoobayo howlwadeennada caafimaad ee dalka waxaa si rasmi ah maanta ugala wareegay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. tan maanta aynu wasaaradda caafimaad horumarinta caafimaadku ay daahfuraysaa shirkad ahaan GTS aanu qaybteeda aanu ka caawinay waxay u tahay sidii haddii mushkiladani ilaahay ma ogolaadee ay faraha ka baxdo dhakhaatiirtii la raadin lahaa la tacaali lahaa in maanta ay noo sii diiwaan gashanaadaan oo aynu diyaar u noqonno haddii ay mushkiladdu intan ka sii xumaato. marka alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale mas-uuliyiinta qaranka in aanu shirkad ahaan annagana ay runtii aanu door ku lahaano aanu keenana keliya systemkii lagu diiwaan gelinayay dhakhaatiirta ama bahda caafimaadka ee la tacaali lahayd xanuunkan si mutadawacnimo keliya maahee qalabkii ama tabletskii gobollada xarumaha wasaaradda horumarinta caafimaadka la dhigi lahaa haddii dadku aanay u wada suuro gelin inay online isku soo wada diiwaan geliyaan inay yimaadaan oo xagga iska diiwaan geliyaan iyo xaggan xarunta ay wasaaraddu runtii iyaduna samaysay aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad wasaaradda iyo guddidaba aad baad mahadsantahay. madasha waxaa ka hadlay guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer qaran kuwaasi oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici, wasiirka caafimaadka, wasiirka diinta iyo awqaafta, agaasimayaal waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan: mobilkaaga ka soo gali kartaa, laptopkaaga ka soo gali kartaa, shaqadaada ka soo gali in xogtaada la hayo lagugu xisaabtamo, qaranku kugu xisaabtamo, wasaaradda caafimaadku kugu xisaabtanto, guddida heer qaran kugu xisaabtanto. ilaahay inaguma keenee haddii xaalad inta maanta ay jirto ka culus timaado qof walba waa loo baahanaya waxa loo baahan in la hawlgeliyo. marka runtii waan soo dhaweynayaa shirkaddan wasaarad ahaanna runtii waanu kala shaqayn doonaa sidii systemkan u hirgeli lahaa. waa mid ka mida tallaabooyinka ay waddo wasaaradda horumarinta caafimaadku iyada oo la doonayo ilaahay inaguma keenee haddii uu yimaado outbreak ama uu dilaac weyne yimaado in la helo shaqaale mutadawiciina oo meel walba ka hawlgeli kara oo ah shaqaalaha xirfadlayaasha caafimaadka ah amba mihnadlayaasha caafimaadka ah ee doonaya inay dalkooda iyo dadkoodaba wax ku taraan xilligan lagu jiro xaaladda adag. systemkani taas oo qura ma aha inagama anfacayo inay isdiiwaangeliyaan oo qura qoladaasi mihnadlayaasha ee mutadawacnimada doonaya. waxa kale oo uu mustaqbalka wax weyn ka tarayaa in uu jaangooyo oo la helo shaqaale weynihii la eega magaciisii lagu dhufto la helayo halku joogo ama gobolka uu ka hawlgalo, sawirkiisii, shahaadooyinkiisii, hawsha uu imiga qabto, inuu bayroolka ku jira iyo inaanu ku jirin. yacni wuxuu ku siinayaa information aad u fara badan oo runtii ay nagala shaqaysay shirkadda ilaahay khayr ha siiye GTS. aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa inagoo ku dadaalayna sidii aynu uga hortagi lahayn ilaahay naga haya xanuunkaas COVID-19ka ee runtii adduunka oo dhan maanta ka qaylisiiyey. ilaahayna subxaanahu wa tacaala yani awooddiisii uu dadka u muujiyey subxaanahu wa tacaala. wax kale odhan mayno shirkaddan umahadnaqana GTS iyo dhammaan shirkadaha kalena waxaan lahaa ku daydaan shirkaddana waanu ducaynaynaa. waad ogtihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu hortagay waxaa ka mid ah in wadamadu ay leeyihiin cudud shaqaale caafimaad oo nidaamsan oo tiro kooban oo la yaqaano qof kasta meesha uu ka hawlgalayo iyo goobtu hawlgalayo iyo goortu hawlgalayo. arrintaasi waa arrin aad u muhiima. waxa markaa aan aad iyo aad marka horeysa aan u sheegaynaa bulshada in qof walba oo reer Somaliland ahi aqoon iyo farsamo iyo hanti wuxuu kaga qayb qaadan karaa inuu kaga qayb qaato. shirkaddaasina waxay fududaysay in qof walba isagoo halkiisa jooga uu isdiiwaan geliyo. maalintaynu u baahanana ilaahay naguma keene inaynu si fudud u gaari karno. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya shirkadda GTS oo run ahaantii iyagu annagu maanaan yeedhin, iyagaa gartay oo noo yimiday, barnaamijka soo sameeyey, noo bandhigay, aanu isla qaadanay. waxa kaloo ay markaa ballan qaadeen qalabkii iyo tababarkii iyana gacanta ku hayaan inta wasaaraddu ay si wanaagsan hawshaasi ugu fulayso.
aad baan ugu mahad celinaynaa. waxay noo ballanayaan talada ilaahayna tala saarano, taladeena aan midayno meel nooga soo wada jeesano sidii xanuunkaas u faafi lahayn. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad buu mahadnaqayaa wasaaradda hay-adda waddaniga ay nagu caawiso hawshaasi oo noo fududayn doonta wixii aynu u baahnayn ahaa inaan diiwaan gelinno. diiwaangelintu macnaheedu waxa weeyaan waa laba arrimood. horta qofku inuu isdiiwaangeliyaa yaa koowa. kolkaan diiwaangelinta helno haddana qofku waa la sii kala saariyo mutadawacnimadu maaha wax la isku qasbo oo waa inuu hadday dhacda u diyaargaroobaa sidaynu xun maamul lahayn ama u maari lahayn. maxamed aadan dirir, telefishinka Ariel, Hargeysa. ma sinna dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam Geydi Money Exchange. saxar ma leh, saluug ma leh, soo noqon ma leh, sagsaag ma leh. yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha. ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Somaliland shilin. sidaan ahayba mooye subaxaan hareer maro nafta waynu siseegnaa. 9 jeer isaniftaa calaashaan kuma calulsame cid kale sariflaha Geydi mooye. ka sarifo Geydi Money Exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka. habka sarifka Telesom waa sidan: markaad dollar cash ka dhigayso raac xidig 377 xidig 30 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geesta taabo. markaad cash dollar ka dhigayso raac habkan xidig 277 xidig 30 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geesta taabo. habka sarifka idahab markaad dollar cash ka dhigayso xidig 109 xidig 65 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geesta taabo. markaad cash dollar ka dhigayso xidig 119 xidig 65 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geesta ku xidh. ka sarifo cadad walbo sariflaha Geydi Money Exchange sarif qiimo sarreeya. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab. haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.